iyadoo weli qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay ka socdaan wacyigelinta ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa maamulka xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar maanta waxa uu wacyigelin u sameeyay barakacayaasha ku nool kaamka Tawakkal ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar waxaana sidoo kale barakacayaasha iyo maamulka xaafadda Horseed ee degmada Jowhar ay codsadeen in waxyaabihii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus la geersiyo barakacayaasha ku nool magaalada Jowhar gaar ahaan barakacayaasha Tawakkal ee magaalada Jowhar waxa jiro oo ku dhameystira wax yaraan hakaday aan ku dhameystira cudurahan jiro oo Allah naga gudbiyo ilaaha weyn ma loo sheegaa ilaaha naga gudbiyo diinta naga gudbiso waxaan hadda maanta aaga hortagayno malaha musqulihii hore waa halaabeen kuba kale inta hadda ku yaala saabuun male ee daawo kalooriin male waxaan ku uri wax hadda daawo aaga hortagi karno amba farmashiyo amba meel aan ka doono karno malaha cudurka cawa socdo maalin socdo inuu ilaahay naga badbaadiyo kaalmaatin aan helno ayaan u baahanahay si aad iyo aad gargaar weyn in laga soo gaarsiiyaan u baahanahay daawaan u baahanahay saabuun wax wali baan u baahanahay waa dad iska tabaalaysan oo iska daryeel xun waxaan rabnaa muslimiinta ilaahay cudurkan yimidna Allah ka qabto ilaahay naga waabiyo waxaan rabnaa in nagala soo gaar muslimiinta inay naga soo gaartay in soo booqato waaba noola yimidee inta dhiman noola dhameystiro waxaan rabnaa hay'adaha inay noo dhameystiraan noo yimaadeen wajiga waaba la arkay inta dhiman la arko gudoomiyaha xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ee wacyigelinta u sameeyay barakacayaashan ayaa waxa uu codsaday in la garab istaago barakacayaashan iyadoona uu kaga digay dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka Tawakkal ee xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga hortago cudurrada faafa oo caabuqa COVID-19 uu ka mid yahay inaan u sheega rabaa dadka meeshan degan oo mas'uulka aan ka ahay oo barakacayaasha adduunka caafimaad darro wax la yiraahdo jirto cudurro la yiraahdo jira coronavirus insha Allah ilaahay naga haayo laakiin wax walba dadaal iyo waxay rabaan in maaragtay lagu xisaabtamo nadaafad darrada waxay ka tahay qayb ay ka tahay inay nadaafada ku dadaalaan inay gacnaha xashaan markay musqusha ka soo baxaan oo kala faraha ay dhaqdaan markay wax cunayaan oo kale ay u dhaqdaan ilmaha wasaqda ay ka celiyaan ayaga maaragtay nadaafada ay ku dadaalaan aan rabnaa insha Allah waxaan kala ka codsaynaa maamulka gobolka hadii maaragtay state Hirshabelle hadii uu soo gaaro sidii state-yada kale ay u gaarayaan agabkaas ku saabsan coronavirus ku saabsan dad soo gaar inay soo gaarsiiyaan dadkan ayagana ka codsaynaa insha Allah dhanka kale barakacayaasha ayaa waxa ay dalbadeen in la geersiyo gargaar bini'aadanimo iyadoo magaalada Jowhar iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka curteen roob Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar